كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يري قفك همجي سكدق الدنيا وحو كفكريا والدنيا وحو كشغينيا والدنيا وحو كصيحانيا والدنيا وحو كسوكعيا والدنيا وحو كهليا والدنيا وحو ايغيا والدنيا قفك همجي سأدنيا وكدق ابو نبي يري أرميه سودان إلهي بري قلبات وككلا الشيرينيا nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saaraya faqri waligaana ka baxayn baa labada indhood loo saaraya arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kala mehelbu rasuulku yiri waman kanat al-akhiratu hammuhu ninka hamigiisa ka dhigay buu nabigu aakhiro macnaheedu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya salaadii buu ilaalinaya soonkii buu ilaalinaya xaqii dadku iska ilaalinaya xaqii jaarkiisu ilaalinaya xaqa dadku la nool yahay buu iska ilaalinaya dambigu yar ilaalinaya wanaaga ayuu ka shaqeynaya hamigiisu aakhiro amal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay amal aakhiradiisa badbaadinayana wuu dhiiran yahay qabanaya mar walba ninka hamigiisa ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga qani hodantinimada qalbiga ilaahay siiya qofku meesha uu ka noqdo ciidna waa qalbiga meesha qani ka noqdana waa halkee waa qalbiga dago aan moodin hebel waa nin milyaneer warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa qinada gelinaya qinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiya arrimihiisa dhanna ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoos timaadaba rasuulku yiri adduunyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma aduu ku daba socda misaala daba socda ya saa ku daba socda har adduunyadu baa leeyahay qofka adduunyadu waa sida harka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa hadaa tiraade adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baa ka jeesan waxaad la mid tahay nin yiri harkayga ayaan soo qabanaya ma soo qaban karis walam yaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba nabigu ma helo qofka hamigiisa adduunyo ka dhiga ma helo buu nabigu yiri illa wixii ilaahay u qadaray ma wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh ogaada adduunyada ka shaqeysan laguma leh ka shaqeyso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay ka gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin waxaad noqotaa bay yiraahdeen culimadu sida doonta waxa loo isticmaalaa bariga misabada maxaa laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxa saaranba way qarriqmi sooma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin hadday adduunyadu qalbiga ay ka gasho adiga waxa ku saaranba wadagiyo ugu dad badan ba maanta way dageen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu maal qabeen booha ninka umada ugu khayr badan booha Abdurrahman bin Auf maal qabeen booha tobankii jannada loo bishaareeyay kamid booha Uthman bin Affan maal qabeen booha tobankii jannada loo bishaareeyay kamid booha Jarir bin Abdullah al-Bajali ogaas booha ajil saxaabada nabi Muhammad raga ugu qiimo badan booha saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen uqaal bay lahaayeen shu'ara bay lahaayeen dhakhtaray lahaayeen umara bay lahaayeen fuqara bay lahaayeen muallimiin bay lahaayeen culama bay lahaayeen ogaasiyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaqa way ka wada sanaayeen iyagu xaqa way ka wada sanaayeen kooga amiirka ila kooga maamuurka simidaata ilaahay uga wada baqayeen simidaata aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan
iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn